بسم الله الرحمن الرحيم ومركلي ولالكين جامعة بسلي كلهم وناكسن waxaanu wadnay baro af Jarmal waxaa inoo khabyo ahaa oon horay u soo qaadanay waxa la yiraahdo magac u yaal waxaanu ka dambaysiinay feebka ahaanshada ama feeb sign hadda waxaan rabnaa marka magacuyaalkii aan soo qaadanay iyo feeb signkii inaan is waafajino mar kale sideen isu waafajinaynaa magacuyaalkii oo magacuyaalaha iyo feeb sign oo falgalaya oo falka ahaanshada ah sida isula falgali lahaayeen ayaan rabnaa inaan hadeertaan iswaafajino fadlan ila soco inaad diyaartaan u malaynayo marka ugu horeysa waxaan leenahay qaybtan waa qaybtii is xasuusinta ich bin waxaan ahay ich waa magacuyaal binna waa verb oo soo qaadanay ayadan du adiga bist waxaa tahay du waxaa waaye waa magacuyaal personal pronomen bistina maxaa waayo waa verb sign casharka hore ku soo qaadanay asaga ist waa si ayada ist waa s buuga ama canuga ist waa via anaga sind waxaanu nahay iyo adinka side waxaa tihiin si ayada si iyaga aan dad maqan ama xagga kale in ka joogo sind waxay yihiin si qof qadarin ka mudana ka soo horjoodo waxa sind waxaa tahay si adinkoo qadarin naga mudano dad badan sind waxaa tihiin intaas waa is xasuusin qaybtan kale marka ish aniga bin waxaan ahay waan is waafajinay ish waa horaan u sheegay bin waxay tahay waa sheegay casharka horaan kusoo qaadanay ish aniga bin waxaan ahay jaamac baan ahay du adiga bisti waxaa tahay bishaara tahay asaga isti waa ahmad waaye si isti waa saaqa ayada waa sahara isti waa hand s isti aan dhahay s isti waa hand mobileka gacanta via sindi waxaanu nahay annaga ahmed saaqa undayama saddexdaas qof ayaanu nahay waxaan nahay wadar via inaga via sindi ahmed saaqa undayama iyo adinka side waxaa tihiin bishaaqo muhammad unda saynab saddexdaas qof ayaa tihiin dadkiinan adinkana si iyaga oo maqana sindi waa ahmad unda saaqa marka meeshaas macnaha ma ahan inay intaa wax kuu taraysa laakiin ficilada sida u shaqeynayaan baa inaan ku tusiyo dadka maqan inaadan hal qof aada ka dhigin dad maqan asaas uga dhigtid si iyaga sindi waa ahmad unda saaqa iyo ahmad waaye si ayada aan dhahay si qofka kaa soo horjoodo oo ixtiraamaysid si adiga sindi waxaa tahay he abdul aad tahay ama abdul aad tahay si sindi abdul adiga waxaa tahay abdul waa qadarin qof macnaha aad qadarinaysid waa sidoo kale dadka badan ee kaa soo horjoodo isla laftirkeeda u isticmaalaysaa oo leedahay si adinka sindi waxaa tihiin hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel sidaa daraadeed waa u isticmaali kartaa iyadana sidan balse maanta waxaan rabnaa xir ku noqdo oo maalin hore aan ka bootiyay saddexdan c maxay ku kala duwan yihiin c oo qofta dhadiga oo kaligeeda sidan kale oo dadka maqana sidan kale u fiirso sidan u dambayso way weyn tahay sida daraadeed inay qadarin tahay ayaa loo weynayay kuwa kalena way yar yihiin labada kale waxaan ku kala saari doonaa sidan oo qofka dumarka oo kaligeeda waxaa waayo isti baa la socoto tan kalena waxaa la socota sind marka midaan markaste oo kale oo ahmad iyo unda saaqa ah markasta waa plural wax jamca oo badan wey marka tan kalena waa markaste waa singular waa keli oo wax aanan wadar ahayn marka sidaas ula soconaysaan waa walaalkiin jaamacadan bislo leh casharada ka dambeeya insha Allah ka xiisa badan ila soco casharkana hala akhriyo hala xifdiyo assalaamu calaykum